kulan daawadayaal ku soo dhawaada marka ciyaar bil qodobada ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii maana waqooyiga magaalada London ee dalka England ayaa sheegay in kooxda Arsenal ay u dhaqaaqday daafaca 20 sano jirka kooxda Stade Rennes ee Chelsea. Newcastle United ayaa diyaar u ah inay tixgeliso iibka wariyaanka Alexander Isak iyadoo si degdeg ah wada hadallo ula bilowday ciyaaryahanada Benjamin Sesko iyo Yohan Wissa. Chelsea ayaa doonaysa inay la soo socoto ciyaaryahan qadka dhexe kooxda RB Leipzig Xavi Simons oo 20 sano jira iyo garab weerarka kooxda Manchester United Alexander Garnacho oo 20 sano jira. Barcelona ayaa gabi ahaanba diiday dalab Chelsea ay ku doonaysay in wariyaanka xulka qaranka dalka Faransiiska Christopher Nkunku 27 sano jira lagu daray heshiiska lagu helay ciyaaryahan qadka dhexe Spain iyo Barcelona Fermin Lopez. AC Milan waxay wada hadal la bilowday kooxda Liverpool iyo wariyaanka xulka qaranka dalka Uruguay Darwin Núñez 26 sano jira balse tartan adag kaga imaanaya kooxda Al Hilal ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa ku guuldareysatay dalab dhan 28 milyan oo ay ku doonaysay inay ku qaadato daafaca kooxda Inter Milan iyo qaranka dalkaasi Jarmalka ee lagu magacaabo Jan Bisak oo 24 sano jira. guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa nuxurka ciyaar bil.